عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan isleeyahay wax badan ma sheegi doono. waxaan rabaa inaan idin baro anoo marka hore idinku soo dhaweynaya kulankan qaaliga ah dhammaantiin masal kasta oo aad ku joogtaan. waxaan jeclaan lahaa inaan idin baro dadka IBS ka dambeeyo. cabdirasaaq warsame gudoomiye ku-xigeenka, mudane cali nuur cali board director, مدن محمد عبد الله قواعدة، مدن عبد الله صباح دابو دايركتور، مدن مهد أحمد سي او IBS بانك، مدن جوزيف بدينغا senior advisor former KTB Bank, Mulane Abdidini, Head of Risk and Compliance, Marwa Shamsa Abdi, Madaha Margashiga Yadriman, Marwa Hidayo Omar, Five Branch Manager. والمهتسين مدحدا كسرسا IBS Bank wax badan oo ku saabsan waxaad ka ogaan doontaa warbaahinta iyo social media oo aan wax walba oo ku saabsan kaararka IBS noocyadiisa kala duwan aan ku baahin doono. waxa uu soo gaaraya dadka aan halmaamay laakiin si wanaag cabdirasaaq ayaa qaar badan oo kamid ah halkan uga mahadceliyay uu kamid yahay Central Bankiga oo aan la'aantii Soomaaliya bank laga fureen. aan ognahay horumarada ay ka sameeyeen financial systemka Soomaaliya. sidoo kale waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa oo aan leeyahay waad ku mahadsantihiin imaatinkiina iyo sida noo soo sharafteen midowga wakiilada safarka iyo dalxiiska ee Soomaaliya saata loo yaqaano oo dabcan dadka qof walba oo Soomaaliya ka tegaya ama imaanaya channelka uu maro oo tigidhka goosto. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxda inagala joogta halkan jaamacadaha dalka oo iyaguna dabcan halboolo u ah macaamiisha IBS Bank. intaa kadib waqtiga gaaban dartiis waxaan sii wadayaa barnaamijkayga. halkan waxaan uga yeerayaa shakhsi ka mid ah isticmaalayaasha Mastercard Dalmar, Abuukar Albert. Abuukar si fudud wuxuu kugu sheegi doonaa macnaha uu leeyahay Dalmar Qorali Mastercard isaga oo tajribadiisa idinkaga sheekeyn doona. Abuukar Salo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحدا kala duwan iyo marti sharafta qof kasta waxaan ku salaami doonaa maamuuska uu ku fadhiyo. aniga title ma lihi laakiin adeegsadayaashan ka mid ahay. marka waxaan meeshan la ii keenay marqaati fur aan ku qoray bartayda Facebook sidaan u maleynahay. ramadaanka koowdiisii meelahaasaan waxaan dalbaday Dalmar waa lii adeego waa lii keenay waa qaatay. marka aan qaaday oo la safray waxaan islaa balorta kaarkan iska tijaabi. markii ugu horeysay airport Turkiga aan ka degay waxaan ku tijaabiyay launch. ma galin launch oo taan fiican maysan laakiin waxaan lagu yiri welcome soo dhawow CIB launch. kadib waxaan galay meel maqaayad oo aan kaga adeegtay kafe iyo rooti yar oo ismarisa. kadib waxaan la tagay duty free oo aan kaga gatay macmacaan yar oo ilmahayga aan ugu talagalay oo waxa la yiraahdo Turkish delight ayaan ku iibsaday. kadib waxaan tagay Denmark. waxaa gashay Turkidii Soomaalida ayaama isku xirnaayeen meeshaan ku tijaabi. anoo sooman ayaan 4 saac habeenimo diyaarad ka degay. meel waxaan raadiyay Turki leedahay shawarma lagu cuno.
kaarkaygi aan la soo baxay kaar kale waa watay laakiin mar walba kana aniga wuxuu ii ahaa inaan tijaabiyo kaarkii waa ku afuray lacagtaas aan ku bixiyey lix maalmood kadib haddana waxaan tagay Sweden markaan xoogaa nastay maalin guriga nalal ka haleysnaa anoo raadinaya waxaan tagay dukaan yar oo meel tuula aan deganahay ku yaallo labada kaarna horaa soo qaado marka balse aan u soo tijaabiyay meeshii markaan tagay oo aan alaabtii meeshii saaro did liisii kaarkii aan geliyay uu ii shaqeeyay marka tijaabadaas aan ku guuleystay marka inaan aamuso shibiska dhaho ii aan weysay kaarkaygii aan watay oo dalmar iyo waxaan sawir iskala qaaday rasiidkii kaarka waa kaas waa samaystay aniga iyo rasiidkii dukaankaan isla soo sawiray marka numberkii aan ka tirtiray si aan la iga gashin afarta number oo rasiidka ku dambeysay iyo waxaan isku soo reebay kaarkayga afartiisa number oo dambe sheekiraan ka soo qoro marka aan leeyahay dalkii hore u talaabsaday xaqiiqatanna waa runtii oo horaan u talaabsanay maanta waxaa farxad ii ah mar hore aan waxaan islahaa kaarka aan haystay in hore loo suuq geeyo bulshada la baray aan u haystay aniga wax tijaabadii koowaad aniga aan ka mid ahaa uma haysan maanta marka farxada ii tahay qofka safartooyda ah ayaa fahmi kara dhibaatada mararka qaar aad kala kulmaysid inaad kaar noocaan oo kale wadatid waxaa ku hagaagi kartaa airport ay diyaaraddu kaa tagtay tigidhkaagana economic ahaa oo flexible ahayn oo waxaad samaysa aan lahayn oo bannaanka aad taagnaanayso marka kaarkaan oo kale haddaa wadatid ugu yaraan waxaad haysataa fursad aad meel ku fadhiisato oo aad ku nasato oo aad ku hesho ugu yaraan haddaan cunto badan lagu siin cunto fudud iyo kafe iyo waxyaabahaas internet aad ku isticmaasho aad ku goosan karto tigidh kale marka loonjiyada faa'iidadooday ka mid tahay waxaa kaloo intaas ku dheer mararka qaar meelaha qaar waxaa laga yaabaa kaarkaaga caadiga ah inaad ka soo tagto ama kuu shaqaynayn kan markaa wadatid fursado badan ayaan ani ka dhex arkay marka horta waxaan leeyahay IBS Bank waan u hambaliyeynayaa in loo sacbiyana waa codsan lahaa xaqiiqatan aniga waxay iga fujiyeen wax aniga igu taagnaa oo safaradeyda la xiriiray marka qof kasto waxaan kula talin lahaa dalkeena mar hadduu sidaan u talaabsanayo oo uu horumarkii inoo bilowday dhiirigelin u baahan yahay markaad isticmaasho bulshada la wadaag aniga intaasaan u soo istaagay door kale meesha kuma lahayn waa mahadsantiin in badan أبوكر أدبو ماتسين هاي طبعا محارجين يا دد بدن أو سفريال أهوال كان شوغا إني هدي أي سنين ما أنت بعيد البنكران فرصة داسين ويده هرتا لا أو فممكن ميلو الباقي يالن وأنا قاعد سكرتا شغالة بنجي جاية ميلو بديارن كوا أنت كدي وحارب هال كان إن نغيرو إن حبين كسعتا ميدوغو بنجي دا سوماليا عثمان حلني أستاذ عثمان waxaan rajaynayaa haddaanu joogin waan ka gudbayaa waqtiga oo aanu saamaxayn darteeda kaarka mastercardka dalmar waxa kamid ah kaar la yiraahdo Diamond kaliya waxa uu gooni yahay dumarka wuxuu leeyahay fiijaro gooni ah oo dumarka siinaya faa'iidooyin badan سادرتي هل كان وحان أقوي ريا مرو جواهر بارقاب أو بدوميها أوركا هوينكا قبل كبنادر مرو سدوا أرجينا يا مام جواهر إني أيد طلبنوت ويران بسم الله أولا وحن ربنا ذكر السلام والسلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنك عذر دارنا يا حوغا عدك إيغا حرن الشغدي أدكي مالمه حرية شرف إيتاينا نورتي نيماضو كان السوق يبقى مناسبة
aan isleeyahay waa maalin aad u qurux badan oo taariikhi ah. wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga, gudoomiyahayga ku-xigeenka maaliyadda gudoomiye Ibrahim, xildhibaanada sharafta badan, xildhibaan Beene Beene iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble, gudoomiyaha rugta ganacsiga, guud ahaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan, saxaafadda iyo cid walba oo dunida dacaladeeda ka daawanaysa iyo inta jecel horumarka dalka waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan dul istaago dhowr qodob oo aan isleeyahay way mudan tahay bal in la milicsado. waxaa ii muuqanaya goobtan oo markii aan soo galayay aan dib u xasuustay 14 Oktoobar noocay ahayd iyo wixii ka dhacay, taas oo aan isleeyahay cadowgu waxay islahaayeen lagama kaban doono. laakiin muuqaalka saaka aan u imid markaan soo galay waa garan waayaba inay tahay halkan goobtii, waxayna tusaale u tahay inaanay ummadda Soomaaliyeed marnaba isdhiibi doonin, Soomaaliyana ay hore u socon doonto. waxaa ii muuqanaya dal burburay, dadkiisuna isdilay, kala tegay, laakiin maanta kabanaya, horumar samaynaya, in laga baxay reer hebel oo dadka Soomaaliyeed ayagoo midaysan ay wada shaqaynayaan. waxaa kaloo ii muuqanaya in ay tahay ahamiyadda ay leedahay iskaashiga, wax wada qabsiga, isu tanaasulka, isjacaylka ayaa lagu gaaray. marka waxaan leeyahay bahda ABS aad u mahadsantihiin, doorka haweenka waa dhamaystirteen. haddii Dheeman la siiyay waxay la tahay akoonka gabdhaha Dheeman inaan ugu baaqo gabdhaha Soomaaliyeed markii ragga loo wada yeeray waxaan islahaa oo talow gabdhiina ma ka tageen. marka labada gabdhood Shamsa iyo gabadhi kale loo yeeray waan farxay oo waxaan isir bal seeftaydi dib aan u dhigtay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, waayo qurux iyo dhadhan ma yeelanayso meel aan gabar joogin. haddana markaan dib u sii ogaaday gabadha loonka ama daynka decision makerka gabadha ugu dambaysa ka bixinaysa lacagta saxiixa ugu dambeeya leh in lagu aaminay gabar, taasna waxay tusaale u tahay bahda bangigan aan isleeyahay maantay uu tallaabsaday, wuu tegay inay xaqiijinayaan cadaalad, waayo gabdhaha wixii lagu aamino waa wax la hubo. waxaan rabaa inaan idhaahdo marka Soomaaliya horey u soconaysaa, waad arkayseen Abubakar Al-Badri iyo wareegii dheeraa uu ka hadlayay safarkii. dad badan ayaan aaminsanayn oo Soomaali ah waxa la qabanayo iyo horumarka la samaynayo, laakiin markaan hadlayno moodo in la iska hadlayo xaqiiqatan maanta waxaan isleeyahay wax lagu faani karo, lagu qanci karo, la taaban karo ayaa maanta halkaan aan kala kulanno. waxaan rabaa inaan ammaano ganacsatada Soomaaliyeed iyo inta wax garanaysa in dalka wax badan uu iska bedelayna marqaatankana. waa u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo in badan waqti badan iyo daal badan iyo hawl badan u galay bal dalkan in aan la soo noqono karaamadeenii, adduunyaduna ayna aaminto, waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan. maanta meeshaan marayno haddaanay ganacsatada Soomaaliyeed aan lahayn heerkan lama gaari lahayn. way ku mahadsan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed oo adduunka meesha tagtaba meel walba oo caalamka ka mid ah dhanka ganacsiga karaamo buuxdaan ku leenahay. waxaan rabaa inaan idhaahdo marka dalku siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka aragiyo maankaba u kala roon tahay. waxaan rajaynayaa marka annaga ka gabdha ahaan anigoo raba inaan ku hadlo magacii haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa caasimadda ku dhaqan inaan idhaahdo si mug iyo sharaf iyo karaamo laan uga qayb qaadan doonaa. waanan idiin mahad celinaynaa, waayo hooyada Soomaaliyeed waxay ku farxi kartaa araggan quruxda badan inta soo xaadirtay oo aan isleeyahay waa intii nuxurkii naxwada lahayd oo aan isleeyahay madax taabad loogu yeeray ayaa marqaatay u tahay in la soo dhaweynta
IBS banka inay tahay mid dadka Soomaaliyeed ay maanta ku wada farxayaan horumarka. waxaan rabaa hadalkayga ugu dambeeyo inaan ugu baaqo gabdhaha Soomaaliyeed inaan wada furano ku soo biirno haday noqon lahayn gabdhaha xildhibaanada labada aqal, gabdhaha ganacsatada, gabdhaha aqoon-yahanada, kuwa qurbaha jooga, dhammaanteedba inaan ka wada mid noqono kuna soo biirno oo aan dhahno waa inaan ka qayb qaadano oo aan maaragtay barnaamijkan uu noqdo mid gabdhaha Soomaaliyeed guryaha loogu dhiso deyn ay ku qaataan. waxaan rajaynayaa shaqo abuur badan iyo ganacsi badan ay nala siiyo insha Allah. intaasaan uga baxayaa waana mahadsantiin wabillahi tawfiiq. maama Jawaahir way mahadsan tahay guwaabadeeda iyo hadalkeeda quruxda badan waan kaga mahad celinaynaa. mar kale waxaan halkaan ugu mahad celinayaa madaxda nagala joogta wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda al-Cadaala iyo madaxda TV-ga qaranka. markan ila soo dhaweeya Cusmaan Xalane oo ku hadli doona magaca midowga bankiyada Soomaaliya. Ustaad Cusmaan soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرada xildhibaanada agaasimayaasha dhammaan mas'uuliyiinta sharafta leh ka soo qayb galay kulankan qiimaha badan ganacsatada iyo dadweynaha kaleba waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib anigu waxaan ku hadlayaa magaca ururka bangiyada Soomaaliyeed. runtiina waxay noo tahay fursad aad u qiimo badan inaan ka soo qayb galno daafurka Mastercard-ka bangiga IBS. bangiyadu runtii waa laf dhabarta dhaqaalaha waddan kasta. marxalado kala duwan ayay soo mareen bangiyadu waa ogtiin. berigii hore ma jirin lacag, bangina ma jirin. evolution badan ama isbedelo badan la soo maray. talyaaniga ugu horeeyay bangi casri ah oo si casri ah u shaqeeyo dibadda iyo credit iyo isticmaala. bangiga ugu daaweyn adduunyadana hadda 547 sano jira weli talyaaniga ku yaala magaalada Siena la yiraahdo. Soomaaliya bangiyada ugu horeeyay waxay soo galeen 20s-kii 1920 bangiga talyaaniga ahaa la dhihi jiray Banca Italia. kadibna markii xorriyadda la qaatay bangiyada talyaaniga ahaa ee bangidi Napoli iyo kii Roma iyo Port Said iyo dalas ku daraa waxa loo bixiyay Commercial Bank of Somalia waa la qaramay. Central Bank yaa la sameeyay. waxaana baa marka inaan halkan ugu mahad celiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii kaalin weyn ka soo qaatay dhaqaalaha waddanka. bangiyada private-ka ah ee branches banksku waxay soo noqdeen 2000 wixii ka dambeeyay. runtiina dhaqaalaha waddanka door weyn ay ku leeyihiin. ganacsina ma hirgali karo iyadoo aanay lahayn bangiyo ay ku tirsan yihiin. marxalado badan la soo maray. Central Bank-ga Soomaaliyana isaga wuxuu yahay maartay kan haga bangiyada gobolka ka jira Soomaaliya. marxaladii aan soo marnay runtiina si wanaagsan ugu soo daabiyay. waxaan isla soo gaarnay quarterly report in la bixiyo, deposit in la dhigo, in kalsooni la abuuro. waxaana baa halkaan hortiina inaan ugu mahad celiyo gudoomiyaha hore bangiga dhexe Bashir Ciise oo runtii aad iyo aad u soo garab qabtay bangiyada. gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeen Maryam ayaguna si wanaagsan ay maartay kaalin xad lagu soo qaateen. waxaan maraynaa hadda position ama meel aan maanta awoodno inaan Mastercard-radii iyo Visa-card-radii keeno. waad arkaysaa Mastercard-ka ma aha markii ugu horreysay la keeno. horey way u jireen laakiin bangiga IBS wuxuu keenay Mastercard-radu waxay kala leeyihiin categories.
wuxuu keenay kii ugu sarreeyey iyo kii ugu hooseeyey world elite mastercard masterka la yiraahdo oo runtii dadka ganacsatada ay ka mahad celin doonaan oo business lounge-yada caalamiga ah iyo hoteelada caalamiga ah iyo sarfiisyo badan oo aad la yaab doontaan aad ka heli doontaan ayuu ku soo daray kuwii hore u jiray kii horena uu keenay marka wax wanaagsan oo qabtay bangiyada hadda waddanka ka jira adeegyo fara badan ay bixiyaan maalgelin ay bixiyaan titiyada ay diraan adeegii caadiga ahaa oo deposit iyo withdrawalkii ku kaysa lacagtaada ay bixiyaan microfinance ay bixiyaan loogu talagalay bangiyo dadka dhaqaalahoodu hooseeyo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay noqdaan bangiyada Soomaaliyeed kuwa lafdhabarta u ah dhaqaalaha waddanka Soomaaliya haddii aan la helin bunuug u shaqeysa si casri ah dhaqaaluhu ma toosayo Soomaalidu waa traders ganacsiga aad u wanaagsan yihiin waa risk takers waa dad aan gabano oo hal adag waxaa rabaa inay awooddaas iyo kalsoonidaas iyo isla weynidaas ay ku galaan industry-ga oo finance-ga waa very important East African qabsi karna insha Allah taala waadna maasantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وياهي عثمان ومحسن ياهي طبعا واحد بدنا كوك ياهي بنك قابك بنك سيستم كصوماليا إن مركلة وحان سود وينيا وأنا ما دعينا يا قدوميها أورك هوينك قرنك ما بطولة وقدال إنه قصور بيرتي مركا ما بطولة حالنا هاي إن واحد طبعا هوينك صوماليا وجين دونتا كارك دائما وقيمة بدن له wax badan hablaha kusoo korin doona inta kadib halkan waxaan uga yeerayaa agaasimaha wasaaradda warfaafinta iyo dadweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo aan doonayo Cabdiraxmaan Cadaala oo doonayo inuu si kooban inoogu soo koobo dabcan agaasime soo dhawo adeegkuna u saabiya agaasime بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبناها كلها وزيرة اللبانة ربطة قناعسيقة أورك هوانكا صوماليات قيبيه سكال الدول بحث IBS يدمانك سوق القليا شمالي ونكسن انت اسكتب رنتي واحد ربعين نوهم بليايو IBS بانك هذه كان معناها لأوضات الصومالي ده يسوق قدبيين warkan nuxurkiisa waa laga hadlay laba qodob baan rabaa inaan wax yar dul istaago mid waxay tahay runtii IBS iyo bangiyada kale Soomaaliyeed muuqaalka wadanka waxay ka bedeleen iyo qiimaha ay leedahay adeegan inuu Soomaaliya ka suurta galo inuu yahay qiimo ka weyn mid dan qofeed wax ka weyn ay Soomaaliya uga dhigan tahay muuqaalka wadanka iyo noloshii wadanka iyo in Soomaaliya ay tahay meel lagu noolaan karo jawiga noocan oo kale taa inuu abuurmo wax weyn ayay muxuu ahaa tahay waana adeegyo kale oo ballaaran oo aan ahayn kaliya mastercard inay hayaan oo u baahan iyaga laftigooda inay dadka Soomaaliyeed wax badan ka ogaadaan ayay hayaan aniga qof ahaan runtii waxa aad ii soo jiitay real estate-yada iyo guryaha ay magaalada ka wadaan waxaanan hilmaamin maalin ayaa Cabdirasaaq gudoomiye ku-xigeenku wuxuu na tusay wuxuuna geeyay xaafad ay ka dhiseen Dayneele degmada muxuu ahaa IBS Bank marka waxaan xusuustaa meeshaas sidii ay 6 sano 7 sano ka hor u taalay ay goobtaas guryaha ay ka dhiseen iyo sida markii guryaha laga dhisayo ay u akaat farqiga u dhaxeeya nolosha meeshaas ka jirta iyo muuqaalka aan suurtagalka ahayn dadka ku soo dhici karin ee meeshaas muxuu ahaa laga arki karay marka riyada iyo hamiga dadka Soomaaliyeed inay wax run ah noqdaan oo dadku waxay telefishinada ka fiirsan jireen ama ay dibadaha u aadi jireen يعني نرش دad badan aysan ku riigo karin in wadankooda ka suurta gali karto ay suurta galiyeen IBS iyo dadka kale ee Soomaaliyeed dadaalkooda marka waa ugu hambalyeynaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ka xumahay runtii anigoo saaxiibadeyda kale saxaafadda joogtana magacooda ku hadlaya in dhagaha iyo indhaha dadka Soomaaliyeed meel kale aan ku mashquulan oo aysan wax badan ka ogeyn waxa runta ah ee noloshooda saameynay oo ah nolosha noocan oo kale taa in dadka la bar adduunyada saxaafaddu waxay ka shaqeyso siyaasaddu waxa ugu badan ma ah waxa laga yaabaa waxa nolosha dadka taabanaya waxa kamid ah qofka subaxii markuu soo kaco yani dhaqaalaha
number 1 waxa qofka jeebkiisa markii amniga iyo nolosha kale ee laga yimaado marka dadkeena dhagooda waxay qabatimeen siyaasadda iyo waxyaabaha la xiriira iyo xaaladaha ku saabsan waxaan marka saaxiibada ku dhiirigelin lahaa annagana wasaaradahan aan ballan qaadaynaa in aan waqti badan siino nolosha kale ee quruxda badan ee wadanka ka jirto ee dadka aynaan ku wareerin qaraxa iyo waxa ku saabsan kaliya saaxiibadeyda kale ee saxaafadana waa ku dhiirigelinaya dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin IBS iyo tiimkiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baa umahadsan tahay agaasime dabcan IBS Bank ahdaaftiisa ayaa waxay tahay in uu dalka camiraadu dabcan siyaabo kala duwan ayaa loo fasiran karaa laakiin tusaalaha ugu habboon oo kusoo qaadan karaa wuxuu yahay tii uu agaasime alcadaala soo qaatay in meel aan deegaan ahayn uu deegaameeyo oo dadkuna ay si sahlan ku degaan waa ogtihiin magaalada dhibaatada ka jirta xagga deegaanka iyo guriyeynta qaab casri ah oo standard ah in ay dadku ay guryaha u dhistaan waxaasoo idil waxay ka mid tahay waxyaabaha uu IBS Bank uu rabo inuu bulshada baro uu kusoo kordhiyo halkudhigiisuna waxa uu yahay IBS Bank wuxuu ku siinayaa awood inta kadib waxaan rabaa inaan sii ambaqaado waqtigu aad u gaaban yahay waxaan u yeerayaa halkan maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee maaliyadda Ibrahim Mahadal gudoomiye soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بقى صوماليا مجاعي ماموس وفريو أيام السلامية. سلام كدي بحشرة كونية إن كسوق قبله مناسبة دا تركيا ماستر كار IBS بانك. رتي طلابة وحي مجلسة سيد حوجن وصعدوا حولي قبع غالها صوماليا قارهان عاصمة مقدشو. waxaan rabaa in halkan ka cadeeyo aniga ku hadlaya magaca gobolka Banaadir in uu gobolka Banaadir diyaar u yahay inuu dhiirigeliyo garab istaago u fududeeyo ganacsatada Soomaaliyeed ee isku xilqaantay inay horumarka dalka gacan weyn ka geystaan waxaan rabaa waxaad ogtiin dalkeena Soomaaliya wuxuu soo maray runtii mustaqbalxumo aad u weyn in 28 sano oo ka socdo dagaal أنا معنا لهين وجيب لها وحكوا وحلو فرحة إن ذلك الصومالي هو صوت كمان أيوه ما أنتي أنجونو ده فور ماستر كار والدنيا ماشية أعتقدو أتكلم هذا كرتو العقد هذا كوتيل رتي وحنا مانيا وحنا بقادينيا وأمر جدينيا ما هذا IBS بانك وحنا هو IBS بانك إن يجين بنجد وجوري مقدسو كهنا قاضي maanta inaan u noqdo goobjoog master card oo anu maanta aan kamid noqday customerka macaamiisha leh master card marka qof walba oo Soomaali ah oo runtii joogo dalka amba la daawanaya aaladda kala duwan ee meediyaha waxaan leeyahay haloo hambaleeyo oo haloo amaano horumarka ay ku talaabsadeen bangiyada guud ahaan gaar ahaan IBS oo maanta aan goobjoog aan ka nahay xafladiisa ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan kula dardaarmo ganacsatada Soomaaliyeed inay dhiirigeliyaan ganacsatada kale ee Soomaaliyeed levelka dhexe ah si loo helo Soomaali ka gaarta ganacsiga heer weyn dal waxa ogtiin waxa dhiso dadku Ilaahay ku beeray Soomaaliya anaga ayaa dadkeedii ah waxaan rabnaa inaan dalkii aan dhisno dowladda Soomaaliya maanta talaabo weyn oo xagga siyaasadda ganacsiga amniga ay ku talaabsatay waxaan leeyahay wax yar baa noo dhiman macnaha aan isqabsano Soomaaliya hadda agaasime idhaahda gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka Banaadir wuu mahadsan yahay Ibrahim qaybtii ugu dambeeyay soo gaarnay marka waxaan rabaa inaan si quick ah ugu yeero halkan oo ugu muhiimsanaa dabcan munaasabadan halkan waxaana la joogaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya gudoomiye Maxamed Cabdi Cali Gabayre gudoomiye soo dhawaad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزير هذا حلبان هذا سنتر هذا هوينك جناست هذا بنجا IBS شغاليسا ورياشة كسوق بجلاش مرتشرة دمانتي وحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد وحن ربا مركو هريس إنه هذا اللي ولا عليهن IBS أو برنامج كان شرفته بدل لا غرفة بدل لا اسكسود بردين نوبي ياري هل كان وعزوا بإن هذا اليوم مركل لبعضنا إن هذا اليوم مسؤولين تا مدحدنا أقبلي إن يعيقون كلا سوق يبقى بالشدة وذا إن horumarka kala qayb galaan la dhageystaan si gooni ah ayagu soo arki jireen laakiin inay maanta bulshada soo dhex galaan haday gobol noqoto iyo haday xildhibaan noqoto iyo haday wasiir noqoto iyo haday gabdho noqoto inaan saa isu dhex fadhino iyada lafteeda waa mahad gaar iyo hambalyo gaalan leeyahay xildhibaanada dhamaantiin intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan iraahdo mastercard-ka ama bangigan IBS oo runtii ah bangi oo bangiyada gadaal la ka soo koray aadna active u ah waxaan xasuustaa aniga waxaan qaatay waxaan ku raadaa dalmar kaarka ah 24 Maars aan qaatay 24 Maars markaan qaatay waxaan maray inta wadan oo ku tagay waxa kamid ah Thailand, Masar, Saudi Arabia, Kenya, Addis Ababa, Imaaraadka oo loo meero marna Dubai marna Abu Dhabi ah oo intaas aan maray business lanjiyada dhan markasta waxaan baroobeynay kan aan ku galay toddoba wadan oo aan isu maray toddoba wadan ba isku si loo isticmaalay oo loo soo dhaweynay marka waxay ku tusaysaa marka kaarka qiimaha uu leeyahay iyo meesha fudud oo keeli karno iyo sida fudud oo helnay waliba marka waxaan rabaa inaan iraado maxay naga faa'iidayaan bangigu maxaa ka faa'iideynaa waxa sanadka dhan $200 oo mimbara ah qofka ka go'aysa akoonkiisa isagana iyaguna maxay faa'iidayaan oo anaga intaas oo wadamaan ku marnay marka wax iibsanaysaa discount leedahay tigidhada discount ku leedahay waa waxyaalo soo kordhay faa'iidada bangiga oo helay waxa kow ka ah depositka iyo akoonada laga furanayo iyo lacagta la dhiganayo bangiga dhan waxa uu ku shaqeeyaa waa depositka marka ganacsatada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed nooc kasta yihiin ganacsato kaliya ma ahine waxaan jeclaan lahaa inaan bangiyada u helino akoonno ka furano wax dhigano sidii hadayba laga sheekeeyo shilinku inaan mar adigu wax ku gadanayso iyo mar umada loogu shaqeeyna inuu labada mid ahaado dhaqaalaha wadankana bangiyada yaaliin dawladuna lacagtaas ay ku soo xisaabtantaa barnaamijkaas marka dhamaanteen inaan dhiirigelino oo uguna mahad celino dadaalada ay wadaan walaalaheen intaas kadib waxaan rabaa inaan iraahdo waxa aad u qurux badan magacyada ay soo qaateen kaafi kulmiye deemar dalmar macnaha laba ugu qaalisan midka ay u soo qaadeen ardada oo kulmiye iyo midka gabdhaha loo soo qaado deemar si gooni ah waxaad moodaa dadkaas labadaas qoloba in loo heliyo u baahan yihiin ardadeena in loo heliyo u baahan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeedna in loo heliyo u baahan yihiin inta kale waa wax iska caadi ah aadan ugu mahad celinaa in labadaas group si gaar ah uga taxadareen master gaarna ay u sameeyeen si gooni ah loola tacaamuli doono aad ugu mahadsan yihiin waxa kaliya rabaa marka aniga inaan ku soo gabagabeeyo waqtiga iska yar dadkeenuna waxa waaye waa wasiiradeena aad u degdegsan yihiin waxaan rabaa inaan iraahdo oo maanta halkan inay ka dhalato anaga dhaqankeena inaan wax ka bedelno oo dhaqankeenu ammaan oo isu bedelo inta badan waa isifnaa وانا اسهارنا وانا xumaantan fiirina laakiin inaan wanaaga ka wada shaqeyno sida hadda cadaalad u sheegay hadda maanta hadii la soo qor la idaacadu ay soo qoraan mastercard oo lagu diriray hadii headline ay ka dhigaan waxa laga yaabaa 10,000 oo qofood inay markii u fiirsato laakiin mastercard oo soo biira marka la dhaho inaan dad badan aysan fiirin marka waxaan rabnaa dhinaca amaanta in la wada aado oo dadkeenu aan is amaano oo qof walba qofka kale to dhinaca ficnaantii dhinaca wanaag kaliya inaan isla aadno oo dhinacaas aan isla aadno waxaan xasuustaa hadda cimrada ugu dambeysay aniga hadda cimradii aan jira xagga nin oo Arab oo waliba nin aad qaali ah aan isla fadhino xoogaa sheekaysanay wuxuu noogu ama 28 sano oo hadda laga qeyrinayo ayada laftigeeda amaan loo bedeli karaa sababtoo ninkaas waxa uu yiri wareed wax adiga ka gudubteen oo adinka hadda aad u baxdeen laamiye iyo jid soo busheen aan hadda anaga geli rabnaa marka iyadaba amaana waa gudubna anaga umada ilaahayna hadda u bilaabanaysa anagu waa gudubna barnaamijka waa gudubna alxamdulillah ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan walaalaheen u hambaliyeeyo oo IBS banki kelmadda ay soo qaateen dawladdeena waxay aan ku tahay
markii ugu horeysay aan ku tahay waxay soo qaateen markii uu wadanka ugu horeeyay ay dhaheen oo Afrika maxaan ku raahdaa gala maxaan ku raahdaa member noqda marka waxay ku tusaysaa dadaalka ay galeen inay yihiin qolada ugu horeysay saarna mar walba anaga ugu horeysay inaan noqonaan rabnaa insha Allah hadina هذا وما سنتي وقتي لقالقة وأديم هذا إلا IBS بانك وحن ليه همبليو قبلها الصوماليين وحن ليه همبليو وإذا وذا قرب غمانينا ولقوا حيكون أماني ريال استيت أو جزيرة ريال استيت أو أفكوني أفر بقولوا قري وهذا أوضان إنكستو إجرا ريال استيت كلو بدن لكن وحمد ذا يجوا استاجن بنجيدا لأنه وحنا وزارة المالية ده يبنجي قد حبا يجوا أمانا إن بنجيدا شغولين كودا أيقون كل حساب تمام أمان تنا أنا قالوا بدن وما زلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سيء هاي قدومية جويرة أنت كديب وحربا سيدو كلا إن هالكان ويرو شخصيات مهمة إن وحنوير يا وزيرك وزارة كنعسية يورشدها إنجنير عبد الله على حسن إنجنير وزير سوريا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وزارة المالية مدير بيلي قدوميها قدي ganacsiga iyo warshadaha iyo dhaqaalaha ee baarlamaanka gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Banaadir gudoomiyaha rugta ganacsiga xildhibaanada labada gole madaxda bangiga IBM dhammaan gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir madaxda ka socda bangiyada kuwa ka socda arrimaha bulshada iyo rugta ganacsiga dhalinyarada haweenka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib runtii farxad weyn iyo sharaf iyo rayn ay noo tahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu daahfurayo oo bangiga IBM uu ku soo daahfurayo barnaamij cusub uu ku soo kordhiyay adeegyadiisa runtii waxaan leeyahay barnaamijka noocaana waa barnaamij ka tarjumaya baahida shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan adeegyada kala duwan ee bangiyadu ay bixiyaan runtii waa barnaamij Soomaaliya ku xiraya ama dadka Soomaaliyeed ku xiraya caalamka intiisa kale waa barnaamij aan isleeyahay wuxuu yimid waqtigii loogu talagalay iyo waqtigii loo baahnaa runtii mastercardku hore waa u jira dalka laakiin IBM waxay ku soo kordhiyeen inay u sameeyaan baahida bulshada inay ka tarjumaan oo qof kasta oo ka mid ah bulshada uu category u baahnaa inuu ka helo bangiga IBM waxaan leeyahay tallaabada ay IBM qaaday waa tallaabo muxuu ahaa aad muhiimadeeda u leh IBS عفوا هذا IBS وطلبوا آد مهمة رؤولة runtii dalkaani waan ognahay marxaladihii iyo muxuu ahaa meelihii uu soo maray ganacsatada Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwii dalka u taagnaa badbaadadiisa muddadii muxuu ahaa 30 sano ee dalku burbursanaa ama ku dhawaadka waxay u ahaayeen kuwii dalka badbaadinayay ama waxayna ka soo bilaabeen xawaaladaha waa garan karnaa baahida bangi loo qabay waan garan karnaa wadankan markii hore waxa ka shaqeynaya xawaalado ayaa lagu bilaabay ba arrimaha bangiga ama serviceka waxaan u tagi jirnay dalalka shisheeya ama Kenya ama Djibouti hadda waxaa mahad ilaah oo muxuu ahaa bangiga uu aad muxuu ahaa ugu dhawaadinaynaa inaan dalalkiiba ka hormarnay dalalkii geeska Afrika oo aan noqonay dalka koowaad xagga isticmaalka muxuu ahaa adeegan inaan noqonay ka wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu waxay u taagan tahay horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgelinta dalka
waxaan runtii waxa ugu weyn oo aan ka shaqeyno waxaa weeye ganacsatada Soomaaliyeed ama private sector-ka qaybahaasi inay helaan adeeg hufan inaan u sahlno jawigii ay muxuu ahaa ganacsatadu ay u baahnaa maalgelinta ay u baahan yihiin ay u heli lahaayeen waxyaabihii u sahlayay waxyaabaha aan hadda wasaarad ahaan xooga saarayno waxaa ka mid ah oo muxuu ahaa inaan abuurno kalaamadkii uu shaqay lahaa ama qaabkii uu shaqay lahaa ganacsiga Soomaaliyeed hadday noqon lahayd xagga shuruucda waxaa ilaa hadda aan dhamaystirnay sharcigii maalgelinta waxaan kaloo muxuu ahaa la dhamaystiray sharcigii muxuu ahaa shirkadaha waxaa hadda socda oo baarlamaanka hor yaalla waa sharcigii tayadhowrka waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa in aad loogu farxaa in ganacsatada shisheeye iyo kuwa dalkuba ay muxuu ahaa ay heli doonaan adeegyo muxuu ahaa adeegyada ay u baahan yihiin ay ka heli doonaan wasaarad ahaan ay naga heli doonaan waxaa wasaaraddu ay saxiixday hadda heshiiska la yidhahdo miiga oo muxuu ahaa ganacsatada shisheeyaha iyo kuwa dalkaba u ogolaanaya maalgashiga ay dalka gashadaan inay garantii u helaan runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa charity begins at home dalkeena annaga muxuu ahaa gacmayna ku burburinay maantana annaga ayaana laga rabaa inaan gacnayna ku dhisano waxyaabaha aan isleeyahay Soomaaliya maadaama ay marba heer soo maraysay oo ganacsatadu ay muxuu ahaa marba marxalad ay maraysay maantana ay marayso marxalad casriya waa inaan dib u xasuusanaa in dalkan dhismihiisu uu yahay waajib dhammaanteena saaran Soomaalidu waxay tiraa waari mayside waraa kaa haro waxaan leeyahay dadka muxuu ahaa madaxda iyo shaqaalaha iyo milkiilayaasha bangigu runtii waxay muujiyeen karti waxay dadaal fara badan iyo juhdi fara badan geliyeen waxay muxuu ahaa geliyeen muxuu ahaa xoolo aad u fara badan sidii adeegaan uu noogu imaan lahaa marka taasi waxayna tusaysaa waddankeena maanta inuu sawir fiican arrintaasi waxay waddanka u yeelaysaa sawir fiican ma aha keliya ganacsiga waxay Soomaaliya oo dhan u yeelaysaa sawir fiican waxay Soomaaliya tusaysaa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad horumar sameynaya waxayna tusaysaa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad alxamdulillah caalamka la jaan qaadi kara waxayna tusaysaa in dadka Soomaaliyeed ay wax badan oo wanaagsan ay ka socdaan oo aan lagu mashquulin dhinaca xun kaliya oo Soomaalidu maadaama ay markii hore muxuu ahaa meelo badan loo haystay inay yihiin dad ka haray adduunyada intiisa kale oo si gooniya loo fiiriyo maanta waxayna tusaysaa in wax badan oo wanaagsan ay ka socdaan Soomaaliya waxay marka arrintaanu mudan tahay in wax badan laga qoro waxay mudan tahay in saxaafadu ay saarto muxuu ahaa focuska meeshii ay focuska laga saari lahaay waxyaabaha dalka dhibaateynaya waxyaabaha dib loo dhigaya in la saaro focuska waxa horumarka iyo muxuu ahaa la tusinayay didiirada iyo muxuu ahaa kobaca dhaqaalaha waxaan leeyahay waa kobac dhaqaale oo dalka ku soo kordhay waxaan leeyahay waa horumar dalka ku soo kordhay runtii tan keliyana ma ahane Soomaaliya sektarro fara badan ay sidaas oo kale uga socotaa arrinta noocaan bilihii la soo dhaafay waxaan marlaynay muxuu ahaa sidaas oo kale serviceyo badan oo dalka ku soo kordhay waxaa ka mid ahaa dayuurada ay keensadeen ganacsatada Soomaaliyeed sida la socotaan dhawaan ayaan maqlaynay waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa Qatar Airways oo 2 July muxuu ahaa duulimaad ka bilowday muxuu ahaa magaalada Muqdisho kuwa kalena hore ay yimaadeen marka service-ka noocaana iyo waxa dadka loo qabanayo hadday noqon lahayd service iyo hadday noqon lahayd wax soo saar intaba waa wax dalka horumarkiisa ka shaqeynaya marka dadka ka shaqeynaya horumarka dalka dadka ka shaqeynaya danta guud oo inta toodi ay sameeyeen ku daray muxuu ahaa tii dhammaanteena la kaga baahnaa waxaan leeyahay dadkaas waxay leeyihiin in taariikhda xusto in loo mahad celiyo in si gooniya weliba waqtigan kuma sii jirto oo Soomaaliya ay dadkeeda u baahan tahay marka qofku walba oo halkan joogo iyo Soomaali guud ahaanba waxaan ugu baaqayaa qof walba inay dalkeeda wax ku darsato dalku maanta ayuu noo baahan yahay maanta ayaa muxuu ahaa qof walba intii awoodiisa ama intii karankiisa inuu dalka muxuu ahaa wax ku darsado marka waan soo dhaweynaa insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo service-kan iyo adeegan aad soo kordhiseen
الحمد لله وحان كلام محوها أنا هلك قبل قاضينا إن عن سيرفيسك عن استعمال الدومو ومحوها رنتي محل جري عن محوها عن نقطة ضدك استعماله إن عن كمان نقطة دومو نسينا في الدومو مالو البوها محوها سومال موجود تنفق في الدومو كوزارة هان جناس هان وحان جرب تاجنا هاي وحان محل جري للشغيرنا بريف السكتر كا سيدنا أو كلا الحمد لله وحاول حفيظنا الوادي فريهن وحول بوق أو محوها الوسه لا يو كان حصل الصوماليات يو إنستيتيوشن هذا بريف السكتر كا إنه هون مران وزارة الجناحسية يورشدو وحاول الحمد لله محوها جرب تاجنا هاي هيلي هوبا وأنا وسهل إنسا إنه مال غش كل سمايان dalka gudihiisa iyo muxuu ahaa haday noqon lahayd ganacsatada wadaniga iyo kuwa ajnabiga ah waliba waxaan door bidaynaa ganacsatada wadaniga si aan taas u samayno waxa weeye muxuu ahaa hadda safar ayaan ka imid oo muxuu ahaa dalka China waxa weeye halka waxa u tagna waxay ahayd maalgashi waana meel aad nooga fog runtii waagi hore waxaa la jiray muxuu ahaa cilmiga loo doonto ilaa China marka hadda waxa weeye halka waxa loo tagay waxa weeye in Soomaaliya iyo China muxuu ahaa xiriirkoodii dib loo soo bilaabo gaar ahaan hay'adda ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo muxuu ahaa marka hadda waxa ka bilowday gudaha ay ka bilaabatay marka tan gudaha ayaa ka qiimo weyn tan dibadda marka cidna wadankeena noo dhismayso annaga dhisi karno insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo dhamaanteen aan muxuu ahaa garab istaagno aan muxuu ahaa dhiirigelino hal abuurka ay noo keeneen muxuu ahaa bangiga ABS noo keenay iyo bangiyada la midka ah dalka ka jiray oo markii horena marxalado kala duwan dalka soo dhaafiyay haddana diyaar u ahayn horumarkii dalka ay ka shaqeeyaan alxamdulillaah waxaan idin leenahay guuleysta waxaan idin leenahay muxuu ahaa alxamdulillaah Soomaaliya hore u socotaa ha noolaato wadankeena alxamdulillaah ya hormaro dhamaanteen aan ka shaqeyno horumarka iyo muxuu ahaa horumarinta ganacsigeena haddii dhaqaaluhu hormaro oo ganacsigu hormaro waxaan maleynaa waxa kale dhammaan waxay ku xiran yihiin labadaas ayaa bays u ah marka sektarada noocaana insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo inay soo badan doonaan oo dad badan ay ku darsay doonaan ayaanu jecelnahay waana alxamdulillaah waxaan idinku guubaabinaynaa inaan servicekaasna aan meel walba oo dalka ka mid ah aad gaarsiisaan insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo وبإذن الله الكريم وأنا ذكرت تاجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزارة الجناحشية iyo warshadaha injineer Cabdullaahi Cali uu mahadsan yahay waxaan xasuusinayaa wasiirka in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha IBS Bank waxay siisay shahaado ay ku muujinayso sida uu IBS Bank u yahay tax compliant ama se inuu canshuuraha uu ka soo baxay doorkii laga rabay 2018 iyo 2019 hadda baan ku jirnaba طبعا IBS Bank haddii mar aad adduunka la macaamilaysid haddii aad mar ka tirsan tahay membershipka Mastercard taas waxay cadeynaysaa in uu buuxiyay IBS Bank wax kasta oo laga rabay bank standardkiisa marka halkaas waxaa kaaga haray marmarsiyo kasta oo qof Soomaali u samaysto uu yiraahdo halkan waa Soomaaliya iyo Soomaaliya wax ka halisan yihiin taas marka ha ka harto طبعا وزيرك وزارة مالية وهالكان إنه جوجنا طبعا أسجنا وحى ونوقش شيء دونا وحبا أو دولة دهور مرة ذا يكسر ما يصير financial system كأدون كيو دولة دبا لكن وحنا وين واحد كهر مريو إن هؤلاء كلي IBS إنه ولي هاي وحنا عدي جوه رئيسي سومالي كنت مستكان ساس مكوضنا لكن وحنا كلنا هاي وحنا عدي جوه رئيسي bariga iyo bartamaha Afrika keenta wall elite Mastercard taas aan leeyahay marka taas qaata miisaan sidoo kale IBS Bank wuxuu ku dadaalayaa mar walba in uu shuruucda dalka iyo shuruucda caalamiga ah ee financial systemka u deganba in uu ka soo si dadka Soomaaliyeed ee aqoonada ku leh IBS Bank aanay meel uga halaabin adduunka daafiisa iyo dalkiisa inta kadib halkan waxaa inoo jooga wasiirka wasaaradda
maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo aan ugu talagalno inuu noo noqdo chief of guest oo uu noo soo xiro munaasabadan qiimiga badan mudane wasiir Dr. Cabdiraxmaan Beyle soo dhawaad adinkana ila soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وزيرك وزارة جناسيكا اللي بعنا ذا الله بدأ قوله الشرف قلها لكم فديا مرتدى كله شرفا كسوق بشي حفلة قرص البطن له معمولك يشقالها IBS بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii aniga sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta idinkala qayb qaato adeeg aad u qurux badan oo waddankeena ku soo kordhay aniga kolleyba shaki igagama jirin soomaalida markaa taariikhdeeda eegto iyo waxay qaban karaan inay waxan iyo wax ka badanba qaban karaan shaki igagama jirin maanta waxaa ii muuqata waxa weeye anigoo in badan jiray inay Soomaalidu dhibaatadii ka daashay gunta soo hubsatay dabeetana dhinaca kale wada jeesteen in wax la qabsado waxna la qabto waxaan aad ugu mahad celinayaa kuna bogaadinayaa bankan IBS inay maanta keenaan World Elite Mastercard inay keenaan aanay noqdaan institutionkii ugu horreeyay Central and East Africa bay yidhaahdeen halka Soomaaliya keena yacni waa wax aad iyo aad sharaf inoogu aweeyaan inay taasi dhacdo Soomaalidu maraaxil badan bay soo martay waa wada ogtiin intiina badan anagu in yar haddaan idinka sheekeeyo waxaan ka shaqayn jiray African Development Bank sanado fara badan sideetamanii waan bilaabay iyadoo dawladda hore jirto economist baan ahaa waxaan ka shaqayn jiray Afrika markay isku timaado lacagaha qaybinta banka ayaan qayb ka ahaa marka la isku yimaado qolo waliba meel bay leedahay Soomaalida of course qalabkoodii meel buu yaalaa waxaan xasuusanahay oo doonaya inaan idinla wadaago ilaa 5 goobood Soomaalida waxa ka dhacay shirka la isku yimid Afrika isku wada mid wuxuu ah mid ka dhacay magaalo inoo dhow wadan inoo dhow markii saa loo fadhiistay madaxda wasiirada imanaya annaguna waxaan meesha u joognaa markay wasiirada hadlaan ee dhaqaalada ka hadlaan lacagaha waxa loo hayo yaanu sheegay markaasa shirkii xoogaa marka martaka la marayo halkii caalamkii Soomaalida laba nin isku duleynaya markaasa mid waliba wuxuu leeyahay aniga matalo nimankaas qaabkay u taagan yihiin iyo meesha sharafta loo fadhiyo wada yaabta hadhow wax la isku qabsaday ayaa soo daayay nimankii waa la qaaday dibadda loo saaray kursigiina dhinac baa loo dhigay calankiina waa la laabay meel baa la saaray shirkayna wada leh marka ninka Soomaaliya halka maalinta jooga yacni waxay ahayd niyad jabka ugu weyn qaran jabka ugu weyn nimankii meesha ka tageen maalin kale waxa dhacday in nin soo galay oo ninkii la yiri kuma aqoonsani leena waraqaha sitee waxaan meelkii baadal ma garayno isaguna uu iska tagay taana waan joogay waxa ka sii daray iyadoo markii dambe la iska dhaafay kursi loo dhigo ayaa dhacday kursiga loo dhigo niman baa soo galay markay bartanka tahay meelaha bariyahan dambe ahayd markaas waxaan maqlayaa leeyahay Soomaaliya soo gashay kursi doondoon oo halkaas South Africa iyo kala dhexgeliyo leeyahay dibadda halka la soo galay meel yar baa huluul la oranayaa halkaas soo galaya marka dhibaatooyin in la iska keen iloobo ayuu isgaarsiin cidii ay faa'iido ugu jirteen iyaguna dagaalka way nala galeen inaan isbaabino maanta laakiin waxaan maraynaa meesha opposite keeda maraynaa waxaan ka hadlaynaa halkan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa inaan adduunka inagu ugu horreeyno East Africa iyo Central Africa Mastercard issues iyo business
ayaan maanta ka hadlay now maanta halka aan joognaa waxay tahay runtu ay tahay waxa weeye shir laga qabanayo Afrika oo dhaqaale ah oo weliba ku saabsan arrimaha fragility-ga maaragtay oo adkaysi la'aanta ma garanaysaa dhibaatooyinka oo aan Soomaali looga yeedhin ma jiro maalin walba waxa leeyahay Soomaalidu ha ka hadasho si ay uga soo kabteen Soomaalidu ha ka hadasho transparency iyo ma garanaysaa furfuraanta ha ka hadashaa la yidhaha Soomaalidu abaaraha iyo si ay uga soo kabteen ha ka hadashaa la yidhaha Soomaalidu ciidamadooda si ay u registergeen ha ka hadashaa la yidhaha wallahi saa ka mid baa ay timi very long letter ayaa saa ka timi oranaysa Washington DC October baa lagu qabanayaa please soo confirm garee arrinta yarta waxaa ka hadlaysaa baa lagu yiri sidaan expenditure-ka cashuuraha u manage garaysaan ayaa layna soo weydiistay marka maanta halkaan marayna master card lama bixiyeen haddaan kalsooni weyn dhaqaaleyna lagu qabin runtu saasay tahay marka waxaan u baahannahay waxaa kaloo garanaya anigu oday weyn baana sheeko badan idinku waqtigeed ka qaadi maayo America ayaa joogi jiraan iyadoo dhinacaan joogaan qof joogin waxaan joogi jiray meel jaarla Minneapolis ka fogay Minneapolis maanta halkay taagan tahay waad ogtiin maanta waxaa joogay baan u malaynayaa 4 qof 7 state oo halkaas 4 qof baa joogay intuu is yaqaaneen telefoonka nama jirin weekend-ka la isku jiray ya dad walaalo wada dhashay ayaa nahay now maanta marka waan ogaa maalintii Minneapolis dad soo degayeen 1992 93 baa waan joogaa anigoo baanka ka yimid oo fasax u joogo fasaxada tigi jiray Soomaalidu maxay haayeen bay su'aashu ahayd wada anaga wala naweydii jiray Soomaali baana where is that baa ku xigta where is that markaas oo Kenya ku xigta waxay ku tahay dhow oo okay laga dhaqaaq maanta Minneapolis hatta sheekada horena waan uga sheekay waa tagi taxi baad fuulay in caadi wado waxaan doonayaa inaan tago Somali Mall intiina badan halkan Minneapolis waa garanaysa gudoomiye beena I'm sure he knows marka tira waxaan doonayaa halka waxa lagu oranayo which one oran maayo moolkaas muxuu hayo Somali muxuu hayo ninka gaalka wuxuu qoran keebaa doonaysa labada magacyo kale leeyihiin uu qoran ya awal waxa la oran jiray Somali marka waa waxay Somali beena ma qosle waa runtii إما كواد فولي وحضرنا وحدوني I want to go to Somali Mall بدران كي ومكورن ما قد عيسى كي ده بول باجري مكورن واحد تجانو مريا بالنسبة لي هذه هيدو وهذه جو الرنت هاي وده ده يا كلو ماي ولا نتجي مركزها gas station مقصود هاي gas station كم بحالك كقرن لا أكتر بحي أنت أنا تكشفن وفي Somalia يا كقرن لا أكتر بحي مركزها واحد نسيني Soomaali ba kulay ka shaqeeyaha ku tilmaamay meesha gal Soomaali ma joogo macnaheedu wuxuu noqday waxa weeye dad badan baa Soomaaliya meesha ku nool ka adeegta waxaan arkay oo kale in marka lagu soo diro biilka anu waan arkay in wali si taayeen kale adaa iga waran waan arkay biilka lagu soo diro electricity-ga Soomaali hoostiga qoray inta bixi ma jira soo hoostiga qoray inta bixi Soomaaliya markaas Soomaalidu waanay burburin waanay dhisi haddaan labadaba karayna maxaa burburin inagu sare iska dhaafno ilaa burburtu faa'iido ma lahayn inaan iska dhaafno Soomaaliya maanta waxa laga hadlayaa waxa weeye dhaqaalaha waddanka inuu dhismo mas'uuliyadda anaga nasaarin waxa weeye inaan shaqadiin abuurro ma garanaysa dhaqaalaha idin weynayno umbrella hoostiisa ku shaqaysanayna noqono inaan baanano idin la shaqeyno inaan correspondence banking idin sameeyno oo adduunyada kale aad ku xidhantaan adduunyada kale baaran badan baa yimaado damcayna iyagu sameeyaan waa ka diidnay laana baaran baa jira la qabso iyaga la qabso oo ku xidho weeyaan oo iyaga kaaga soo horeeyay waddanku qaanin buu leeyahay wasiir ka warramay buu leeyahay marka waddankani meel buu gaadhay meel baanu ku socdaa wuxuu meel u gaadho meel ugu socdaana waxa weeye dhibaatooyinkii waan ka soo daalay eeyar baa inoo hadhay intaa yar aynaynu gacmaha isqabsano ayaa loo baahan yahay waddankan dhaqaalihiisa iyo cilmigiisa iyo wixiisa in dhisnaa loo baahan yahay waddankani miyaa laydinkama warramayo inuu khayraad badan leeyahay waxa la isku dilayaan in khayraadka yahay laydinkama warramayo halka uu ku yaallay allayna siiyey innaguna dagaal soo galnay runtii
ya ayaa dhulka la isku dilayaa badda waxa ku jira iyo waxa bariga ku jira waxaasiba maanta wax dibadda yaala weeyaan qofkii wax akhriyaa internet ku jiraay waa arki karo marka waxaan aad ugu faraxsanahay markaas ragga ka soo shaqeeya dumar ka soo shaqeeya arrintan adeegan quruxda badan leh aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waa idin wada hambalyeynaya waxa kaloo aan doonayaa kollaba inaan hadalkayga dhammayn aanu mahadnaqo ganacsatada dalkan Soomaaliyeed oo anigu intaan joogay ee sharfay wixii looga baahnaa bixiyay cashuurihii bixiyay wixii loo baahayana nala qabta aad baan ugu mahadnaqay waxa kale runtii aan ugu mahadnaqayaa dadkan ganacsatada ahayn ee haddana wixii cashuur income-kooda ka soo gala iska dhiibeen ciidan maxaadu ka mid yihiin meelaha yaryar dadka yaryar business-ka yaryar ka mid yihiin dadka shaqaalihi ka mid yihiin ya maanta magaaladan bishii waxa aan ka qaadnaa ilaa 15 milyan ya laga qaada 15 milyan bishii 15 waa gaadhaysaa haddii wax walba la isku daro markaa nimi half of that ma ahayn runtii half of that ma ahayn laakiin waxaa kaloo wanaagsan saddex kalena meel kale aan ka keenna marka halkan waxaan ku kharash karaynaa bil walba ilaa 18 milyan now 18 milyan dadku hadday og yihiin inay bishaaradu u soo dhacayso oo ay ku kalsoon yihiin maalinta shaqada bisha gaadheen lacagooda helayaan waxbay si amahanayaan idinka idin imanayaan aqaladan ay qayb ka galayaan adhisaysaan deyn bay ka qaadanayaan annagu waxaan ku talagalaynaa waxa weeye annagoo of course madaxdayadu ay hogaanoo tahay madaxweynaha iyo prime ministerku waxaan ku talagalaynaa qof wal oo dawladdan u shaqeeya hadduu soo shaqeeyo inuu mushaar qaato waxa kale ku talagalaynaa waxa weeye qof wal oo mushaar qaatana inuu shaqeeyo ilaa shaqa looga baahan yahay shaqada iyo wax soo saarka iyo waxaad qaadanaysaa wax isku miisaan weyn haddii aad markaa shaqayn weydo dee meeshaasi inaad ka socoto ayaa loo baahan taasi iyo lafteena waa ku talagalaynaa waxa kaloo aan idinku soo gabagaynaya wax weeye arrintii deen cafisku qarkay saaran tahay waxa heshiis lagu gaadhay maanta waxa weeye in aan labadii sano ee soo dhaafay wixii la inooga baahnaba yeelay waxaan anagu quwadda saaray waxa weeye inaan miiska la fadhiisano dadka inaan la dacweyno dadka xagga kale ka soo jeedo IMF iyo World Bank iyo dadka kale waxay yiraahdaan wax ka keeno cilmi kula hadallo nidhaahna waxaa ma karayna iyo waa karaynaa waxay dawlad kale kartay oo aan karaynin ma jirto waan nidhaahno dawlad kale waxay samaysay oo aan ugu samayn karin de markaa maxaan nahay weeyaan ishugu dabeeta marka inta arkeen waxay yiraahdeen qarar baa la gaaray bisha February soo socota intii la naga cafiyo intii la naga cafiyo in Soomaaliya marka loo sameeyo normal programming waxa la yiraahdo sida adduunyada kale normal programming oo sanad walba lacag loo la xadiday Soomaalida loo qaybiyo African Development Bank World Bank Islamic Development Bank muxuha EU da qolooyinka waaweyn lacag bixiya ay qoondeeyaan sanad walba la isla sii ogyahay oo dhismaha wadanka laga qayb galo ayaa qarkay noo soo saaran waxaan isku daynaa marka waxa weeye inaan ka soo baxno tamaanta aan wadno oo aan ahayn waxaan ka soo bixi karin ahayn inaan dhamayno ayaan u baahanahay marka waxaan idinku bogaadinayaa shaqada weynaad soo qabateen baanano annagana waxaad naga fishaan waxa weeye oo ay garab taaganahay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye annaga iyo ganacsatadu inaan isku badanno weeyaan gudoomiye gabayro inaan isku badanno weeyaan inaan isku waqti badsanno weeyaan aniga haddii la waayo aqalkaaga agtiisa ku jira wadii soo gelay wadii soo yeer shirkaaniman saamaanta baadii soo yeedhay shirkaaniman laakiin inaan isku badsanno oo aan wada sheekaysano yaa loo baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya ha noolaato